qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay aabbo wanaagsan carruurtiisa diinta si fiican u baray gaar ahaan qur'aanka iyo tafsiirkiisa laakiin carruurtii markay soo weynaatay teenager markay noqdeen yani waxay bilaabeen qur'aanka aqriskiisa inay ka fogaadaan ku camalfalkiisana inay ka fogaadaan طبعا carruurtii markay soo weynaatay waxay bilowday markaa inay ka tagto ku dhaqankii diinta iyo ku camalfalkiisa طبعا qofku markuu labadaas arrin ka fogaadana waa taqaanaa cuquubaada ku dhacdo inuu iskuulaadka hoos aga dhac gareedkiisa inay jirro ku dhacdo walwal inuu ku dhaco maybe qaar of them inay aadaan xabis aadaana laga yaabaa haddaba aabbahaas wanaagsan oo carruurtiisa saan u soo tarbiyeeyey laakiin siduu rabay aan ka helin محو سمين دونا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورجوكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة والبقية قصة عصب قصتنا ما انت وقصاد وقيمة بضن قف والبو أنك بدنا ويخصيصا أما والدان نهي أما إن شاء الله والدان نقون دون تاي سيدا درتيد قصدا maanta aad iyo aad ku khusaysaa si fiican u dhageyso ka faa'iideyso walaalaha kale u sii gudbi insha Allah waxa jiri nin aad u wanaagsanaa gabar wanaagsan oo diin lahu guursaday ilaahay carruur fiican uu siiyay carruurtooda si fiican u tarbiyeeyeen tarbiye islaamiya qur'aanka xifdintiisa kaliya ma ahani fahamkiisa tafsiirkiisa bareen هذه دين كامل تفسيركي فقهي حديثكي ولا بري أباهن ما شاء الله عرورتي تسفي عنه وسود ذلك عرورتي وسويناتي تينيجري سيسون نقدين وحال بالله بمركة إن قرآن كي أقرس كيسي يكو عمل فالكيسي يصرادي يحوغو سلاغا غاغابيو أبيه مركة وحوغو أنسادي قف والبو عرورتي سكمده بوكس في عنو هدية ده الوحيد إنه كانوا هدية آت وقيمة بدن كتاب قرآن إيه تفسير كيس إسوتني إنه أسوقليو عرورتي أسوقو ذا يري قفوا البوحو يرعاه وحان كسينا هدية كسينا هدية ذا وحان ربا إنا فرتد إيشيكتد وحان كسمينيسيد الميه واوضا فرحين مدول وبوكس يوفوري كتاب قرآن مع تفسيرها كجرو آدي وفرحين أبوه كتاب كيردون كذين أبوه دي أمادة مدحي كردون كذين وحيدين كتاب قرآن وايه وأقرسانينا وانا كو عمل فلينا عرورتي مالمي كو عمل فشي كدي بوكسيجي يقفل بسريرتي سمدحي هذا وصارتي صبحي مركو سوكو كتاب كردون كنا ميشي سكو حرينا قلبتي مركو بحا هبينك مركو يدين كتاب كردون كنا ميشي سكو حرينا لكن أقرس مجرو كو عمل فلنا مجرو المهي طبعا حقوق دين تمركي كفوا قادين وحاد عادي مركا صلاة الصبح إني كو أتكات إني سوكعان صلاة هي جماعة إني كو أتكاتو أخلاقيات كودو حقوق إني إسبدشو حقوق سكول كي جريد كإنه هوس ودقو قار كمدي إني تماسك على أجرتان جبدي حقوق حجاب كإني يريس المهم قضاها على الله السعودي أبيه وفكري هبينو سقود يري مركا wuxuu yiri carruurteedii waa idin jecel maanta waxaan rabaa inaan idin sheego qiso aad u qiimo badan dhageysta carruurtii waa faraxday waayay heedheen aabihii wuxuu yiri waxa jiri aabbo carruur fiican lahaa carruurtiisana aad u jeclaayeen asigana aad u jeclaa waxay daruufta ku qasabtay inuu baxo meel kale shaqo u aado wuu yimid carruurtiisu maca salaamay wuxuu yiri shaqan aada waxa warqadana waa idin soo diri doonaa xoolana waa idin soo dira insha Allah taala ee guriga hala ilaaliyo hooyo hala ilaaliyo qof walbana qof fiican ha noqdo carruurtii waxay dhaheen haye ballan way aabaheen insha Allah carruurtii aabihii ballantaasi ku kala tageen wuxuu yiri aabihii wuu baxo magaalo kale u aaday wuxuu bilaabay marka adiga warqada inuu carruurtiisa u soo diro warqadii koobaad markuu soo diray carruurtii waa wada faraxday waa imaadeen waxay dhaheen warqadan waxay naaga timid qofaan aad u jecelnahay warqadan waa inaan barfuumayno box fiican aan gelino warqadii lama aqrinin meesha la geliyay xoogoo kadib haddana warqad kale uu soo diray sidii leela sameeyay xoogoo kadib warqad kale uu soo diray sidii leela sameeyay aabihii wuxuu maqnaadaba gurigiisii u soo noqday gurigii wuxuu yimid hal wiil kaliya joogo
markaasuu wuxuu ku yidhi hooyo aaway wiilkii wuxuu yidhi aabbow hooyo way dhimatay way xanuunsatay lacagay isku daawaysa maysan haysanin sidaa darteed hooyo way dhimatay aabbihii inuu ku xanaago wuxuu yidhi warqaddaan idiin soo diray oo lacagta meeshaa ka qaadanaysaan idinku soo diray miyaadan arkin miyaa wiilkii wuxuu yidhi maya warqadda waa aragnay laakiin maanan arkin warqaddii waa dhunkannay bogsigaan qurxanaana dhexgelinayn maadaama warqaddan ay ka timid qofaan aad u jecelnahay haddana wuxuu ku yidhi walaalkaa hebel aaway markaasuu wuxuu yidhi aabbow walaalkay hebel hooyaday markay dhimatay qof waaniyuu waayo ilmo ciyaal suuqiinuu kulligu xirtay cunugii walaalkii ahaa daduu dilay gaangisuu noqday jeelaa la geliyey waa la soo sii daayey asigiina waa la dilay aabbihii haddana inuu ku xanaago wuxuu yidhi warqaddan asiga u soo diri oo aan ku dhahay kaalay iga daba imaaw meeshaana ka shaqaysanaysaa wax ka baranaysaa miyuusan arkin miya markaasuu wuxuu yidhi aabbo warqaddaa u soo dirta asigana sidoo kale warqaddii waa qaadnay waa dhunkannay bogsigan quruxda badanaana ku xirnay aabbihii haddana markii saddexaad wuxuu ku yidhi walaashaa hebla aaway markaasuu wuxuu ku yidhi aabbo walaashay heblo ninaa soo doontay warqadaa laguu soo diray kamaadan soo jawaabin ninkiyaa guursaday aabbihii inuu ku xanaago haddana wuxuu yidhi waa iidana warqadaan u soo diray oo aan ku leeyahay ninkaas nin sumcad leh ma ahan nin wanaagsan ma ahan nin diin leh ma ahan nin akhlaaqdiisa la duray waaye nin mashaqaysta waaye waxaas dhana ugu soo qoray iska dhaafa guursanine warqaddaan u soo diray miyaysan arkin wiilka haddana wuxuu ku yidhi maya aabbow walaashii warqaddaa u soo dirtay iyadana sidoo kale warqaddii waa dhunkanno meelaan dhignay aabbihii marka carruurtiisa qisada u sheegaayay oo ilmihiisa qur'aanka bari wuxuu ku yidhi carruurtiisa aabbow markaan idiin arkay waxaan soo xasuustay qisadaas ninkaas aabbaha carruurtiisa warqaduu u soo qoray ay ku jirto badbaadadooda laakiin maysan aqrinin warqaddii way wada halaagsameen carruurtaydoo idinkana waxaa idinkaga baqaa kitaabkii ilaahay idiin soo dejiyey haddaa ku camal fali waysaan oo bogsigaas qurxan inaa gelisaan habeenkiina aad dhunkataan maalintiina aad dhunkataan haddaa iska beddeli waysaan dhibka hadda idiin haayana kama baxaysaan waxaanan ka baqaa mustaqbalkiina inuu hallaabo carruurtaydow ilaahay qur'aankan wuxuu u soo dejiyey inaan ku camal falno umuusan soo dejinin inaan meel dhigno habeenkiina aan dhunkanno maalintiina aan dhunkano إلهي سبحانه وتعالى وحوي وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون آبيه مركو انتاس وشيء عرورتي واسكو وذا النقدين كل ووذا خشوعين وحي بلنك قادين آبهو إني اسكب بدلاين أرنتهور قرآن كين ايكو عمل فلايين الحمد لله عرورت مركدا بإله هو ذا هجاجي وجوجور سدين ضد في عاني والنقدين ولا سأجيدنا قصة وقصة أحد وقيمة بدن كل جينا نوذا تابني سقف والبرق الدمر لأن إن شاء الله مالنا والد نقدم تهدادا هذا والدهين هذه عرور هذه يريهين مالني كوينانين هذا الكمقلان بري وحالة قال وقتي هذا الكمقلين إذا قصة وحنا باهنا هاي إن كفى إيديسن وحنا باهنا قصة إن كفى إيديسن فائدوين كان قار أنيقا شيئا انت كالان إذيك إذين داية سوقر إن شاء الله فإذا كوبات وحالو باهن هاي عرور تاذا مركو هوروهوية في عنينا ودورتي تاس نمبر 1 واي وحاكلو لو باهن هاي إنا تربيسيد أيغو ير قرآنك مسكحدو ذا جليسيد دينة إسلامك أجي عليسيسيد حدا أيغو ير وحكو شبتيد مركي ويناذان سفي عني كو مقلاين حتى هذي سن نقضان أي بنانك أبحان إن شاء الله واسو نقونين لأن علماء ظهر وحي ديجرين العلم في الصغر إن علمها يران وحلقو برو وكان نقش على الحجر نقح وحلقو قريو كلوا والله آبه وحو إبري أنيقو تضبصنا جيرو إلى يومنا هذا وحسوستي إذن فإذا كوباد وحاوي عرورتين إنان كد ذالنو أيقو يرنه أن وحبرنو فإذا اللبات المها ولا لشيكيستا ولا لفريستا
kor waa laga warhayaa waa loo yimaadaa fiiri ilmahaaga xaalkooda hadduu isbedelay aabbaha fiiri aad ku caqli badan ilmihiisu wuu kormeerayay isbedel markuu ku arkay wuu yimid tajrubada koowaad uu ku sameeyay waxaa waa haddii uu keenay qur'aankii u weyneeyey qur'aanka wuxuu aaga dhigay hadalka ilaahay oo adduunkan ku kala socda wuuna yahay qur'aanka ilaahay wuxuu rabay laakiin ilmo maadaama cadamada qur'aanku rabay qalbigooda inuu geliyo waxaa loo baahan yahay marka aabbo walba ama hooyo walba ilmahaaga inaad ka warhaysid kormeertid haddaa aragtid inay wax iska bedeleen inaad sida ugu dhaqsaha badan la qabatid la hadashid la fariisatid ayaa loo baahan yahay faa'iidada saddexaad waxaa waaye ilmaha waxyaalaha wax lagu fahamsiiyey waxaa ka mid ah qisasta faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun haddaa aragtid cunugaaga inuu wax fahmi waayo qur'aanka ku aqri xadiidka u aqri qisasna u keen ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisay ku jirtaa qisasta nebi maxamed sal lla ly slam qisooyin oo asxaabtiisa aaga sheekeyn jiray kaana man kaana qablakum dadka idinka horreeyey waxaa jiri jiray 3 nin oo saan isaan ah waxaa jiri jiray nin oo indhoole ah waxaa jiri jiray qisooyinka rasuul sal lla ly slam asxaabtiisa wuxuu aaga sheekeynayay waxaa waaye maskax ahaanuu rabay inuu u dhiso qisasta marka waa lagu dadaalaa in caruurta waa tarbiya waa qisa litarbiya waaye qisa faa'iido leh in caruurta laga sheekeeyo ha lagu dadaalo faa'iidada afraad example u keen ilmaha example si sidii wax ku fahmay example soo qaad saan isaana jiri jirtay saan isaana jirtay example la siiyaa mithaala loo keenay caruurta si wax u fahmaan hada fiir caabihi caruurti markuu mithaal u keenay kitaabka meesha dhigaysin ninkaas oo kale ku mathalay wixii mithaal markii loo sheegay caruurtii waa fahmeen oo way qaateen ilaahayna wuu u hanuuniyay faa'iidada shanaad ilmaha la fariiso la sheekayso qaylo markay soo weynaadaan qaylo wax ma tarto ulna wax ma tarto annaga haddaan nahay dadkii Soomaali haddaan nahay ilmaha inaan ku qaylino ama inaan garaacno ama inaan inkaarno saddexdaasna looma baahno in la inkaaro horta waaba xaaraanbo in lagu qayliyo sometimes waa imaanaysa laakiin inay noqoto asalka ma ahan sometimes in la ciqaabo waa imaanaysa laakiin asalka inay noqoto ma ahan asalka waxaa loo baahan yahay ilmaha targhiib iyo tarhiib qusul saan samay kanan ku siina haddaa sameey weyso waa ku ciqaaba laakiin inay noqoto marka hore targhiibka uu ka horeeyo tarhiibka ayaa loo baahan yahay laakiin haddaan asalka dhigano qaylo iyo ul iyo inkaar ilmaheena way halaabayeen ilaahay ilmaha noo hagaaji faa'iidada lixaad iyo tan toddobaad iyo sideedaad sagaalaad tobanaad adigaa lagaa rabay nacam soo qor waxaa ka faa'iidaysatay khayr allah ku siiyo jazaakum allahu khayran baarakallahu fiikum وإنه جمعة صوت إيوه قصة عصب إلى جمعة صوت لا جاري دقيسو كفائديسو فائدة صقر ولا راك الأوسي قد بي جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته